وهجاك داوديال قرال كان صادر كان وتويتر كا وزارة arrimaha dibadda Soomaaliya ay soo dhigtay oo markaasi lagu sheegayo in safiirka Soomaaliya u fidin doono Ruushka si diiran loogu soo dhaweeyay halkaasi isla wasaaradda waxay la hadashay waliba fiqi wuxuu la hadlay dhigiisa Ukraine macnaha halkan safiir u direen dhanka kalena waxay la hadleen Ukraine laba game waaweyn ciyaarayaan waa kana wasiirka arrimaha dibadda Ukraine oo bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraalkaas kadib markii ay wada hadleen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi wuxuu leeyahay waxaan u mahad celinayaa sida dawladda Soomaaliya ay u taageersan tahay madax banaanida dhuleed ee dalka Ukraine bala waxaan hoosta ka xariiqnay in aan dhisno wada shaqayn laba geesood ah taas marka wuxuu ku tusaysaa in dawladda Soomaaliya ay game adag ciyaarayso gamekaas marka wuxuu noqonayaa game aad u halis badan gamekana markuu halis badan yahay marna hawadu ka tuurayaayo waa laga guuleysan oo bad ayaad galaysaa marna adaa guuleysanayo hada dawladda federaalka Soomaaliya marka Ruushka ay u dirto safiir halkan ay la hadasho waxaa dhici karta in Ruushka uu halkaasi ka xanaaqo oo khilaaf uu soo dhaxgalo Ruushka iyo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya because Ruushka wuxuu aaminsan yahay in Ukraine ay tahay dhul ayaga ay leeyihiin oo ayaga ka tirsan yihiin Ruushka ma aaminsana in Ukraine ay wadan tahay laakiin ay Ruushka ka mid tahay ayuu aaminsan yahay sidaas awgeed marka dawladda federaalka Soomaaliya ay Ukraine la hadasho hadhowna Ukraine u dirto safiir tusaale ahaan ay safiir samayso den halkaasi balaaya ka dhacayso oo maartay Ruushyaanku way caroon doonaan sidoo kale safiirka Soomaaliya halka u magacaabayso iyo xiriirka Soomaaliya iyo Ruushka waxa ka xanaaqi kara NATO iyo Mareykanka iyo Canada ka xanaaqi kara marka waa dab ma aragtay labada dhinac ka shidan mid dooro la dhahayo waay Ruushka hadii ay la saaxiibayaanna waxa caroonaya ama si kala wax u qaadanaya ama balaayo halka ay ka dhici doontaa waa Mareykanka iyo Canada iyo Europe inteedii kale ama waxaan la isku yiraahdo NATO hadii dawladda federaalka Soomaaliya ay xiriir laba geesood ah wada shaqeynaa ay la yeelato Ukraine waxa haddana macquul ah in Ruushkii uu xanaaqo soo waxay u taalaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo diblomaasiyadeedii sida ay u xalin lahayd albaabadaasi halka ka soo furmi doona